السلام عليكم وحن سلامة يا أمد الإسلام كعامل كستو يتشوغان أمد الصوماليات حن كايم دي أنو الصومال لان بان كايم دي مقعيق وعاشا وآذن وحلايقا قاطع عروتايدي لبا عرورة ولا يشد لي سالديق النيو هرقيسا أيا ليقو قراعي عروتنا وحايقا قاطع نينكي دالي والله يرهد محمد هاكار نينكا بريهورانو كلا تاقناي لبا دو كونيشان يتبانك بيشي تدبات بانو كلا تاقناي dabadeedna wuxuu damcay inuu awlaadiga qaato 5 baan u dhalay 5 ilaa maalintii aan dhalay ilaa iyo maxaa la dhahdaa maanta awlaadeeda aniga haystay wuxuu damcay awlaadii inuu xoogiga qaato maxkamad baa isiisay maxkamadii maxay heeday muu tagin ciidan buu soo dalbaday ciidankiiba awlaadii laba igaga qaatay jeelka Hargeysa maxay saldhiga New Hargeysa ayaa la igu dhex garaacay carti laygaga qaatay laba laygaga qaatay markaa wiliga gabadh baa laygaga qaatay saldhiga dhexdiisa laygaga qaatay isaga ay xidhay 3 nin oo ilma adeeradii ah ayaa maxay heeday garaacay oo habeenkii lili garaacayay oo carti iga qaaday ninkii oo saldhiga dhex jooga ayaa carti la siiyay 3 baan markaa kala soo cararay waxaan la soo hoos galay dawladda Puntland ayaan la soo hoos galay Soomaaliland waa dalkaygii maxaa la dhahdaa Puntland waa dalkaygii Soomaaliland waa dalkaygii waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi labada caruura ee xooga igaga qaatay Maxamed Haakar waa nin saxaaqa wuxuu ii soo wakiishay ciidan wuxuu igaga qaatay boolis saldhiga dhexdiisa la igu garaacay waxaan dawladda ka codsanayaa in carruurteeda la iga qaado labadeeda carruura bugtaan baan ku soo koriyay iyagoo bukaan haysanayay uu nacay markay bukeen uu iska daadshay maalintii caafimaadeen ay maxaa la dhahay qurux bateen waxbarasho wax walba ku daray ayuu maxaa la ii soo xoog sheegtay marka waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliland waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi carruurteeda labadeeda carruur ayna ninka la iga qaado Maxamed Haakar ma xishooda weeyaan waxa weeyaan fircoonka qarniga weeyaan waxa weeyaan dalkayga aan ku dhashay ciidan markuu ii dalbaday een xamil waaye hooyaanahay ayaan uga yimiday ana uga yimiday wadanka waana jeclay anu wadankayga mana caaya mana cambaaraynayo dadkayga dalkayga intaba waan jeclay laakiin waan u adkeysan waaye waan uga yimiday saddexdaa ubada ayaa la soo fakadan la soo cararay waxaan la hoos joogaa calanka Soomaaliya calanka Puntland baan la hoos joogaa ummadda Soomaaliyeed baan la hoos joogaa waxbarasho haday tahay guri haday tahay ay degaan intaba haday tahay iyaga la hoos joogaa waxaan doonayaa walaalahayga muslimiinta in carruurtaasi waxbarashadooda iyo gurigay degi lahaayeen maadaama godkii aan deganaa bahal igu galay oo ka soo fakaday aan Soomaaliland maanta aan ka soo qaxay waxaan doonayaa in carruurtaasi waxbarasho la igu daro hooyanahay ilmahayga waan nacay inay kala gumaysato oo la qaybiyo naaga saa loogu qaybiyo waan diiday labada uu haysto oo uu gumaysanayna insha Allah marun Ilaahay gacanteeda ku soo celin doona carruurtaydaasi marka waxaan doonayaa labada saddexda carruur ee maanta aan gacanta ku haysto hooy ay degaan iyo maxay hayto iyo iskuul ay dhigtaan in noloshooda ina layga kafaara qaado aan waxaan ku hoos joogaa calanka Soomaaliya iyo dawladda Puntland ayaan hoos joogaa maanta shacabka Puntland dawladda intaba dawladda Soomaaliland shacabka Soomaaliland intaba waan la hadlayaa awlaadaydaasi ninka hala iga soo qaadan lahayn Maxamed Haakar waa fircoonka qarniga waa nin saxaaqa waa nin maxishooda waa nin aniga oo ooridiisi ahaa oo kala tagnay ummadda Ilaahay way kala tagaan Soomaaliland Maxamed oo dhanba way kala tagaan inuu xidho uu ciidan ii dhiibo oo idhaahdo garaaca naagta garaaca oo carruurta iga soo qaada ma yuhuud baan ahay anigu mise Tigray baan ahay anigu axmaar baan naag Soomaaliland u dhalatay baan ahay anigu ku dhashay laakiin wuxuu ii habar wacday waxa weeyaan jananka ciidanka daba galan ninka la yiraahdo ayuu ii habar wacday in adeer ii hiili hooyo iyo ilmaheeda halka loogu kala hiilinay ma garanay anigu ma arag waligeyna hooyo iyo ilmaheedii oo laba qolo laga kala dhigayo loo kala hiilinayo dawladda Soomaaliyeed anu kuma arag magaalada cidna anu kama aqaano saddexda ciyaal fadligooda soo galay magaalada ilmahayga waan diiday inaan tuuro oo naaga gumeystaan oo iskaga tagon magaaladana meeshaan doonaan ku noolaado waan diiday waan isku kari waayay ilmahayga inaan meel kula dhinto god hadii aan galayna inay la galaan jannada hadaan galayna inay la galaan
ayaan ku tashaday anigu yaa iminka waxaan joogaa 2 maalmood ayaan joogaa magaalada qofna kama garanayo bes ummadda Soomaaliyeed inuu ubadkayga inaan la soo hoos galo ku korsado cidna dambi kama gelin Soomaaliland waa dalkaygii waa dadkaygii waan jeclahay qofna waligeed dambi kama gelin waligeed xabsi leeguma xidhin intaan jiray wallahi inaan wali la xidhin ilaa ninka Maxamed Haakaro ay xidhay oo isla galo ma halagu taxogaloomo oo naaga dabada saa uga soo riixayeen waxa nin naaga wadaya awr wada midna kaama leexday Soomaalidu tiraahdaa ya dad baa dabada ka soo riixay ka soo qaada